runtii fanka aad baan u jecelahay fanaaniintana runtii waan ka mid ahay marmar baa kursigaani aan ku fadhiyo waxaan idhahdaa kursigaan 4.5 marka loo qaybiyo kii fanaaniinta waay ma gartay anagoo inaga maartay xoogaa meesha oo aan ku tolla ahay hadda saadaan ugu soo darsantay ma gartay nin saaxiibkeenu jimiilaasheed waa cabdishire waxaan sugaynaa goordhow inuu nagu soo biiro saaxiibkiisa hadda dhinaca wuxuu u leexday mogtahay xukuumadda oo diblomaasi waay laakiin cabdishire waxaan sugaynaa inuu baarlamaanka noo soo galo si aan anaga laftirka u sagaashan bursan marmarna qaarna waa xafiltanaay waxaan idhahdaa suugaanta inkastoo nafirka ay kuwa iga noqdeen kuwa geelayda oo heesaha hadaan ku leeyahay waxaa dhinaca beeraha maala taabto dhinaca maanta marka waxaan beeralayda waxay dadkaan xoogaa yar waa silugayaan wax badan baa laakiin haddii talo laga qaato waxba hagaagi lahaa waxaa ka mid ah Soomaalidan waxa la yiri baddaan iyo barigan waa ku dhamaatay Soomaalidii meel ma fariisanayso waa socotaa wadankeedii inay iska joogto waa diiday maxaa tala cilada intay ka timid la yiri ninba meel uu ku dhuftay nin beerley oo oday miskiin adiga loo malaynayo waxa uu xigmad Soomaalidu waxay la fariisan la adahay anigu idin sheegay laakiin iga miyeelin soo reey waxaan baasaboorkii wada fiiriyo maxaa ku soo wareeg geela ku soo wareeg adiga nin geel meel ma fariisan adiga geel joog geel meel fariisan ma yahay ayr sidoo geel u saxay Soomaalidu balka Soomaalidu fariisan roo qumba lagu masoo geela soo jeedina marka away baasaboorka geelka laga bedelo qumba lagu qoro waa dagaysaa fariisan professor ma bay ama professor waxaan ku mas'uul keenay xal socodka waxaan ugu professor waa soo wadaba Soomaalidu waa 8 milyan 85 milyan oo Ethiopia iyo 45 milyan oo Kenya iyo waxa ku hareeraysan dadka badan marka ninka Soomaaliga ah waa inuu u qalmaa ama qabkii geelo kale uu ku jiraa oo qurti uu diido sida marka geel uu soconayo qoorta dheer uu taago isaguna waxa uu soconayo Greenland Soomaaliya ku soo celino abshir xalan ratibaan aragnay aniga iyo Maxamed Yuusuf hadda kaamirada naga duubaya iyo asaga wuxuu yiri ratigaas baabuurta hoon ku yeerin hadii aaba arkilaa nimanka hoon ku yeerin waa dilla aad baan ugu faraxsanahay ratiga waxana ka baqaysa hoon lagu yeerinayo aabay haduu noolaan lahaa madaxweynaha hadda meeshan maray xabad buu ku kala goyn lahaa qofka hoon ku yeerinayo adiga ragaasan marka gaari haduu wada xataa Soomaalida waxa la qalad u sheego dalka guduudka ma uu istaagto marka sida waxa geel wax ila kar balwada sida jira qofkiisi waxa way xabad roon ku dhajiyo wada sharci loo sameeyay waxa habeenkii dadka soo jiifay inay socdo marka